daahir riyaale kaahin madaxweynihii hore ee Somaliland ayaa ka hadlay colaadda dheeraatay ee beelaha Ceelif Weyn ee gobolka Sanaag waxaanu soo jeediyay in nabadaynta beelahaasi si wada jir ah loo xalliyo dalkana nabadiisa inaan wada ilaalino waa waajib in nabadda la isku tuurtuuro oo laga dhigo sheeko la isku haysto looma baahno nabaddu waa waxa bini'aadamku ku nool yahay haddayna nabadi jirin xitaa salaada ma tukan karaysid cibaadada xitaa khalkhal baad ku jiraysaa nabaddu markaa waa furaha nolosha jaamacadi ma jirteen waxba ma jireen waxaan idin xasuusinayaa 19 baa guddi anigu jeermaan mar aan ahaa gobolkaan maamulaynay waxaanu ka shaqayn jirnay iskuulada jira in jiigada laga goosto ayaanu ilaalin jirnay reeboona macdi lama joogan iyo ka jiigada ka goosanay kuwaasan ka ilaalinaynay oon cashuur yar dawladda hoose ku sameeynay oo aan siin jirnay markaasi gunno lagu ilaaliyo waashimaanada dhakhtarka jeelka meelaha soo dhan waqti baa la soo maray awdal iyo Somaliland guud ahaanba meel fiican bay maraysaa laakiin inta la socdo taariikhda turaanturro lama waayo dhacdooyinkuna waa wax caadi oo bini'aadanka la socda markastaba waxba dhacaya waxa dhacaya sida xal loogu raadinayo ayuunbaa meesha yaalee wax kale oo yaali ma jiro maxay halkaa wax uga dhaceeniyo maxay waxaan inay hagaagaan nin kasta oo jecel yahay waxa la yiraahdaa ninka arigiisa bahal ku jiro ayaan dareenmo yaane orod dareen lama yiraahdo waxaan aaminsanahay in loo dadaalayo dadka oo boqol erga loo diray Somaliland isku tagtay ilaahay waxaan ka barayaa inuu nabad ku soo dabaalo aqligana ilaahay u soo celiyo dadka walaalaheena bariga dagaalku ka socoyo oo ka dhaxeeyo wadad walaala ah wada dega abti ilma abti iyo waxa isku ah Soomaalidu mushkiladeedu waxa weeyaan abtirsiin wax la yiraahdo ayaa siiyay qaar baa dilay abtigi dilayo waa qabiil kale qabiilka soddon isku timaadaan ka abtiga ama in abtiga ba ka xiga waa wax Soomaalida ku talaalan oo cudur Soomaalida ku talaalan oo Ilaahay inuu Soomaalida ka daweeyo loo baahan yahay daahir riyaale kaahin hadalkiisa sii wata waxa uu tusaale u soo qaatay colaadaha hore oo deegaanadaasi ka dhacay waqtigii uu xukunka hayay waa fidnad way bilaabantaa laakiin fidnadu markay bilaabato siday ku dhamaato way adag tahay waan xasuustaa gobolada markaan madaxweyne ku xigeenaha Burcana 3 bilood baan joogay ceergaabana 3 bilood iyadoo la isku leynayo waxay suuro gashay nasiib wanaag in dadka heshiisiyo nabad ay noqdaan maamul dawladeedna laga dhiso haddana maanta waa taa dhibaatada iska dhacday ilaahay waxaan ka baryaa inuu maantana ilaahay nabad ku soo dabaalo oo ay nabad noqdaan dalkeenna runtii uu inagu filan yahay horumarku maalinba in baa soconaysa ugu dambeyn daahir riyaale kaahin waxa uu fariin u diray bulshada gobolka Awdal oo uu tilmaamay in nabadda dalka ay ilaaliyaan waxyaabo badan oo wanaagsan oo sameeyeen oo marmarka qaarkood ay iska dafiraan baa jira idinka bilaabay jaamacad idinka nabadii bilaabay dawladnimada idinka dhisay la idinma sheegan karo marti kuma tiidina si fiican wixii lagu raadsada taasana kula talinay waxa kaloon halkan ka hambalyeynaya dhalinyarada maanta ku guuleysatay aqoonta waxaan kaloon hambalyeynaya waalidiintii ku soo dadaashay professorada halkan jooga baan hambalyeynaya wada jir waa in lagu wada shaqeeyaa haddii wax khaldan yihiin isku tilmaama eed ha iskaga dhigin oo ha isku eedeynina waayo eedda waxba lagu gaadho haddii la isku eedeeyo hebel la yiraahdo waxba la gaari maayo marka waxaan idinku la talinayaa inaad kuwa isla taliya oo wanaagga safara xumahana iska waaniyay inaad noqotaan sidii nabigeenu inagula dardaarmay Cabdi Salaam Axmed Awad Cabdi Jermani wararka Sahan TV